السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan casharka labaad ee koorsada Microsoft Word. waxaan casharkan uga hadlaynaa softwarada word processorska ah ee hawsha ay qabtaan softwareka MS Word hawsha uu qabto la mid ah, iyo sidoo kale waxaan ka hadlaynaa versionska iyo editionska kala duwan ee uu Office-ka leeyahay iyo sida Office-ka loogu shubto kombiyuutarka. marka laga hadlayo softwarada word processorska ah waxaa jira boqolaal software ee word processors ah oo isugu jira kuwa fudfudud oo basic word processors ah ama aan awoodda uu MS Word leeyahay oo kale aan lahayn, iyo kuwa fully featured ah sida MS Word oo kale. sidaa darteed waxaan casharkan ku soo qaadanaynaa kuwa ugu caansan ee ay dadka inta badan adeegsadaan. Google Docs, sida magaciisaba aad uga jeedo, Google Docs waa software ay leedahay shirkadda Google, waana software web based ah oo hawsha uu qabtana ay si aad ah isaga agdhow yihiin hawsha uu MS Word qabto. Apple Pages sidoo kale waa word processor ay leedahay shirkadda Apple oona ku shaqeynaya operating systemyada Apple sida iOS iyo macOS. sidoo kale waxaa ka mid ah barnaamijyada word processorska ee caanka ah word processor la yiraahdo LibreOffice Writer oo inta badan ay adeegsadaan dadka Linux isticmaala. hase yeeshee Mac iyo Windows sidoo kale version ku shaqeynayana way jiraan oo uu leeyahay. WPS Office Writers waa mid ka mid ah word processorska caanka ah ee ay dadku inta badan ku isticmaalaan moobiladooda. hase yeeshee sidoo kale wuxuu leeyahay versiono ku shaqeynaya operating systemyada Windows iyo Mac iyo Linux. Zuhu Writer waa software word processor ah oo web based ah oo ay hormariso shirkadda Zuhu. shantaasi waa shanta software aan isleeyahay inay yihiin word processorska ugu caansan. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta aan u soo qaadanay softwaro kale ee ka baxsan softwareka aan koorsadani ku baranayno. ujeedka aan softwaradaas u soo qaadanay waa laba mid. tan koowaad, waxaa laga yaabaa inaad softwarada aan soo xusnay hore u maqashay ama aad u isticmaashay. sidaa darteeda ujeedka wuxuu yahay inaad ogaato MS Word inuu ka shaqo dhow yahay shaqada ay softwaradaasi qabtaan. tan labaad, haddii softwarada aan soo xusnay aadan hore u maqlin ama adeegsanin, haddii aad MS Word barato waxaa ku sahlanaanaya inaad adeegsato ama aad si fudud ku fahanto dhammaan softwarada aan soo xusnay iyo kuwa la midka ah. haddii aan u gudubno versionska uu Office-ka leeyahay, version waxaa la yiraahdo haddii aydan aqoonin ama aadan hore u maqlin, version waxaa la yiraahdaa tiro ama qoraal lagu kala saaro shay hore u jiray iyo wixii gadaal looga soo daray. haddii aan si kale kuu fahamsiiyo, barnaamijyada Office-ka la isku yiraahdo ee hadda jira magac ahaan waxaa la yiraahdaa Office ama Microsoft Office. 10 sano ka horna sidoo kale waxaa la dhihi jiray Microsoft Office. marka sideen ku ogaan karnaa Office-ka kombiyuutarka noogu jira ama Office-ka aan ku shubanayno inuu yahay Office qadiim ah oo mid hore u jiray ah, ama inuu yahay mid gadaal ka soo baxay ama midkii ugu dambeeyay oo soo baxay ah? waxa aan ku ogaan karno ayaa la yiraahdaa version, ama waxaan ku ogaan karnaa versionka uu barnaamijka leeyahay. MS Word wuxuu ka mid yahay barnaamijyada la isku yiraahdo Office. Office-kana versionkiisa wuxuu ku base garaysan yahay sanad. tusaale haddaan ku siiyo, Office markaad ku shubanayso waxaa magaciisa gadaal ka raacaya sanad sida MS Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2022 iyo kuwa la midka ah. sidoo kale waxaa jira versiono yaryar ee ku hoos jira versionka weyn ee sanadka ku base garaysan, laakiin inta badan waxa la iska fiiriyo waa versionka weyn ee sanadka ku base garaysan. waxaa muhiim ah inaad ogaato MS Word kaligiisa inaadan kombiyuutarkaaga ku shuban karin. sida caadiga ah, haddii aad rabto inaad MS Word ku shubato waxaad ku shubanaysaa ama aad u baahanaysaa inaad ku shubato Microsoft Office. sidaa darteed waxaa sidoo kale muhiim ah inaad ogaato Microsoft Office inuu leeyahay editions kala duwan. edition kastana wuxuu ka kooban yahay barnaamijyo dhowr ah. sababaha ay shirkadda Microsoft Office-ka editiono kala duwan ugu samaysay waxay tahay sababo la xiriira pricing-ka ama qiimaha la iibinayo software-ka. haddii aadan ogeyn, Microsoft Office ma ahan software ama barnaamij free ah, waa software lacag ah ee aad laysansigiisa iibsanayso. waana sababta ay u jiraan editiono dhowr ah. edition kastana qiimaha la iibinayo wuu ka duwan yahay editionka kale. editionska Office-ka waxaa ka mid ah Office Home and Student, Office Home and Business, Office Professional iyo Office Professional Plus. saan hore usoo sheegnay, edition kasta barnaamijyo dheeraad ah ayaa ku jira, laakiin barnaamijka aan koorsadani ku baranayno oo aan u baahannahay waa MS Word. sidaa darteeda dhammaan editionska Office-ka uu leeyahay barnaamijyada ku jira MS Word wuu ka mid yahay.
saan casharkii hore uga soo hadalnay MS Word wuxuu ka mid yahay barnaamijyada koorka u ah dhammaan editionska uu Office-ka leeyahay. Sidoo kale waxaa jira Office loo kasi jiray Office 365 ee hadda loo yaqaano Microsoft 365. Office-ka caadiga ah ee aan ka soo hadalnay iyo Microsoft 365 farqiga u dhaxeeya waa Office-ka caadiga ah waxaad kaliya iibsanaysaa hal jeer, halka Microsoft 365 nidaamkiisa uu yahay nidaam subscription oo sanadle ah ee aad sanad kasta lacag bixinayso. Koorsadan waxaan adeegsan doonaa Office-ka caadiga ah, gaar ahaan waxaan adeegsan doonaa editionka Office Professional Plus 2021. Si aad Office ama Microsoft Office ugu shubato kombiyuutarkaaga, marka hore waxaa muhiim ah inaad software-ka setup-kiisa haysato. Sidaa darteeda waxaad haysataa laba option. Optionka koowaad waa inaad software-ka oo Office-ka iibsato oo aad shirkadda ka iibsato ama dadka iibinaya. Optionka labaad waa inaad la soo degto software-ka asigoo la karaagareeyay. Waxaa sharci ah oo wanaagsan inaad software-ka iibsato, laakiin haddii aadan awoodin inaad iibsato, waxaad la soo degi kartaa software-ka asigoo la karaagareeyay ama karaagaraysan si free ah. Waxaa jira website-yo dhowr ah ee aad kala soo degi karto, laakiin website-ka aan isleeyahay inuu ugu wanaagsan yahay waa website la yiraahdo getintopc.com. sidaa darteeda marka hore waxaad soo furanaysaa browser sida Chrome, Microsoft Edge ama Brave. Kadib waxaad qaybta URL-ka lagu qoro ku qoraysaa getintopc.com. kadib waxaa kuu soo kacaya website-ka. Website-ka wuxuu leeyahay qayb search ah ee aad halkan uga jeedo. kadib waxaad qaybtan search-ga ku qoraysaa Office 2021 Professional Plus oo Office-ka aan koorsadaan adeegsan doona ah. kadib waxaad leedahay enter markaad tiraahdo waxaa kuu soo baxaya natiijooyin dhowr ah. anaga midka aan u baahannahay waa Office Professional Plus 2021 kan ugu horeeya aad halkan uga jeedo. Click ayaad ku siinaysaa si uu noogu soo saaro page-ka aan ka download garaysan lahayn. kadib hoos ayaad u degaysaa ilaa uu kaaga soo baxo batoonkan ay download full setup ku qoran tahay. kadib click ayaad ku siinaysaa. kadib wax yar ayaad u kaadinaysaa. kadib saad u jeedo wuxuu ku weydiinayaa halka uu kuu dhigi lahaa marka uu kuu soo dego barnaamijka. halka aad rabto ayaad dooranaysaa, kadibna save ayaad leedahay. sidoo kale haddii uusan ku soo weydiinin halka uu ku dhigi lahaa, wuxuu sida caadiga ku dhigayaa folderka downloads ama folderka adiga aad ku aadisatay. soo degidiisa waqtiga ay qaadanayso waxay ku xiran tahay xawaaraha internetkaaga. kadib soo dejinta marka uu dhameeyo waxaad tagaysaa halka uu kuu dhigay. faylka uu kuu soo dejiyay waa file compressed oo rar ah. si aad rarka uga qaado waxaad u baahanaysaa warar inaad ku shubato. aniga oo warar uu igu jiraa, sidaa darteeda faylka ayaad right-kale ku siinaysaa. kadibna waxaad leedahay extract here ayaad dooranaysaa. kadib wuxuu ku soo weydiinayaa inaad password geliso. passwordka ku xiran waa 123 ama 123. kadibna waxaad leedahay okay markaad tiraahdo wuxuu bilaabayaa inuu compresska kaaga qaado. waxaa laga yaabaa inuu daqiiqado dhowr ah qaato, waxay ku xiran tahay speedka kombiyuutarkaaga. kadib markuu dhameeyo waxaad soo furanaysaa folderkan uu halkan kuu dhigay. kadibna waxaad furaysaa faylkan ay setup ku qoran tahay ayaad soo furaysaa. waxaa laga yaabaa inuu kuu soo kaco account control. haddii uu kuu soo kaco yes ayaad leedahay. kadibna waxaa kuu soo kacaya setupka Microsoft Office ayaa kuu soo kacaya. kadib wuxuu bilaabayaa inuu kugu shubo software-ada. ku shubidda sidoo kale daqiiqado dhowr ah inay qaadato ayaa laga yaabaa. sidaa darteeda waad u kaadinaysaa ilaa uu ka dhameeyo. markuu dhameeyo waad iska close garaynaysaa. markaad intaas samayso Microsoft Office wuu kugu shubmay, laakiin kuma activate garaysna. si aad u activate garayso waxaad soo furanaysaa folderkan ay activator ku qoran tahay. kadib faylkan ayaad right-kale ku siinaysaa. kadibna extract here ayaad leedahay si uu compresska kaaga qaado. compresska markuu ka qaadmo waxaad folderka ku dhex arkaysaa file ay ku qoran tahay kms_vl_all. faylkaas ayaad soo kicinaysaa. markaad double-click ku siiso waxaa laga yaabaa inuu kuu soo kaco sidoo kale account control. haddii uu kuu soo kaco yes ayaad dooranaysaa. kadib wuxuu kuu soo kicinayaa ama waxaa kuu soo kacaya shaashad madow amaro ku dul qoran oo sidan oo kale u muuqata. kaliya waxaad taabanaysaa keyboardka lambarka lambar 2 ayaad dooranaysaa. kadib wuxuu bilaabayaa inuu ku activate gareeyo Office-kaaga. ugu dambeyn markuu kuu soo qoro press any key, keyboardka ayaad any key taabanaysaa oo keyga aad rabto ayaad dooranaysaa. aniga space ayaan taabtay. kadibna waad iska xiraysaa shaashada madow. haddii aad intaas samayso software-ada Office way ku activate garaysmayaan. si aad u xaqiijiso inuu ku activate garaysmay
waxaad soo kicinaysaa MS Word ayaad barnaamijka aad soo kicinaysaa si aan u soo kicino waxaad ka raadinaysaa qaybta searchiga oo waxaan ku qorayaa Word kadibna saad u jeedo waxaa kor kaaga soo baxaya barnaamijka MS Word kadibna click ayaad ku siinaysaa click markaan ku siino saad u jeedo waxaa ku soo kacaya softwareka markii uu ku soo wada kaco waxaad tagaysaa sidebar halkan ay account ku qoran tahay kadib waxaad halkan ku arkaysaa product activated haddii uu product activated ku soo saaro waxay ka dhigan tahay in softwarada office-ka kugu jira inay ku activate gareysan yihiin waxaan rajaynayaa inaad wax uun ka faa'iiday casharkan waxaan casharka xiga uga hadlaynaa start screen-ka uu MS Word leeyahay iyo sida dokumenti cusub oo blank ah loo sameeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.